Magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool waxaa maalintii 16aad galay dagaalka u dhexeeya ciidamada Somaliland iyo dadka deegaanka ee magaaladaasi. Dagaalka waxaa dhinac socda duqeyn xooggan oo ka dhacday xaafadaha qaar. Isimada dhaqanka ee hogaaminaya dadka deegaanka ee dagaalka kala hortagaya ciidamada Somaliland ayaa sheegay in ciidamada xukuumaddu madaxweyne Muuse Biixi ay duulaanka ay soo qaadeen. Afhayeenka garaadada dhaqanka ee magaalada Laascaanood ayaa sheegay in dhowr jiho ay kasoo duulaan tageen ciidamada Somaliland balse iska caabin ay kala kulmeen dadka deegaanka. Waa sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu intaasi ku daray in duqeyntu bilaabatay kadib markii ciidamada Somaliland ay ku guuldareysteen inay gacanta ku dhigaan goobihii ay beegsadeen. Duqeyntu ayuu tilmaamay in ay burbur xooggan gaarsiisay guryaha rayidka. Dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Puntland, qaramada midoobay iyo dhinacyo kala duwan ayaa baaqyo wadajir ah u jeediyay ciidamada Somaliland iyo dhanka ka soo horjeeda ee dadka deegaanka Laascaanood si dagaalkoodu ay ugu bedelaan wada hadal.